taliyaha ciidamada lugta Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo shalay soo gaaray degmada Doolow Soomaaliya ayaa maantay waxa uu kulan la qaatay salaadiinta iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Doolow Soomaaliya waxaana sidoo kale shirka qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimo taliyaha guutada tobanaad qaybta 43 ee gobolka Gedo General Maxamed Cadow Cali Sanka gudoomiyaha degmada Doolow Soomaaliya Cali Farxaan Faarax Mire iyo qaar kamid ah saraakiisha ciidamada ee ku sugan gobolka Gedo maamulka degmada maamulka gobolka iyo waxgaradka shirka ka soo qayb galay ayaa soo dhaweyn ballaaran u muujiyay taliyaha iyagoo markaasina soo kale dareenkooda iyo fikirkooda intii uu shirka socday taliyaha la wadaagay Doolow waxa sharaf weyn inoo amaanta inuu soo gaaray generaalka ciidanka lugta Soomaaliya xukumay u soo gaaray gobolkan inuu arko bulshada qaybaheeda kala duwan ciidamada u qurgalo xuduudaha dhammaan inuu arko oo aysan noqonin wax looga sheekeeyay aad bay sharaf noogu tahay generaalkii oo maanta maxaan ku raadaa codsadin inuu odayaasha la kulmo xaqiiqdii ragga kale markay yimaadaan waxay ka bilaabi jireen maamulada inay la kulmaan inay ciidamada la kulmaan laakiin generaalka wuxuu lambarku codsaday inuu bulshada la kulmo laakiin waxaan ku hubaa Doolow waa meesha dawladda ugu jecel soo dhaweynta dawladda halka ugu jecleed oo maxaan ku raadaa ugu banaanbax baneed waa dawladdu inay isku garbar wado ciidanka ammaanka sugudiisa iyo investmentiga maalgelinta inay isku garab wadaan ugu yaraan garoonka ay ka soo dagayeen inay hagaajiyaan bedelaan qurxiyaan laami saaraan waa wax loogu fadhiyo waxa kaloo loogu fadhiyaa oo madaxweynahana fariintana aad gaarsiinaysaa haddana inuu arki doona ay la tahay isbitaal weyn oo degmadu bixisay oo 700 mitir iyo 300 gudub ah hadana qaldarayn 200 gudub ah arrinaan isku filanay ma dawladda bin madaxweyne min baarlamaan mis hay'ad kaste waxaan ka codsanaynaa isbitaalkaas in la dhiso gabagabadii shirka ayaa taliyaha ciidamada lugta Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi ayaa waxa uu ka mahadceliyay soo dhaweyntii ballaarneed ee shalay ilaa maanta loo sameeyay isagoona dhanka kale faahfaahin markaasi ka bixiyay ujeedada safarkiisa uu gobolka iminka ku joogo inay markaasi la xiriirto ama ay tahay u kuurgelida xaaladda amni ee deegaanada gobolka Gedo iyo midda ciidamada gobolka ku sugan waxaan anigu socodkaygu ahaa kow inaan ciidamada ku sugan noocyadooda kala duwan ee ku sugan gobolka Gedo aan u kuurgalo noloshooda iyo jiilaha ay difaaca uga jiraan niyadda gudoomiyaha iyo wasiirka iyo gudoomiyaashu ay ka hadleen oo ah inaan ka dhul bilaabo bal xogta dadka inaan ogaado dadka mas'uul waxa ka ah intiinaan yaa mas'uul ka ah inaad deegaanka xogtiisa iyo dareenkiisa inaan ogaado ka bacdina aan ku cabir qaato go'aamadayda aan qaadanayo aan ku cabir qaato taladiina iyo soo jeedintiina Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada Doolow Soomaaliya.